السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال halkani waa muuqaal baahiyaha idaacadda codka dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir ku soo dhawaada qodobada warka duhur waxaana ugu waaweyn wasiirka maaliyadda iyo duqa Muqdisho oo maanta si wada jira xariga uga jaray xarumaha canshuuraha lagu qaado ee degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag kulan ciyaareed lagu maamuusayo xasuusta duqii hore ee Muqdisho injineer Yarisow oo lagu soo gabagabeeyay wadanka Holland wasiirada amniga iyo saadaasha hawada oo maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kulan lagu dhiirigelinayo nabadda iyo dalxiiska oo maamulka degmada Daynila ay ku qabteen degmadaasi iyo askari u dhashay Sacuudi Carabiya oo 3 qof ku dilay Mareykanka waa 8 bisha 12 ee December sanadkuna waa 2019 u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa maanta waxay si wada jira xariga uga jareen xarumaha canshuuraha lagu qaado oo laga hirgeliyay degmooyinka Hodan iyo sidoo kale Howlwadaag gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan madax ka tirsan maamulka gobolka oo kamid yahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda Ibrahim Dheere ayaa maanta waxay tageen degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag labada mas'uul ayaa si wada jira waxay xariga uga jareen xarumahan loo asteeyay in canshuuraha lagu qaado wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in kobac dhaqaale uu dalku samaynayo isla markaana loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan horumarka dhaqaale ee dalka ka jira duqa caasimadda ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamed Cumar Filish oo asna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ay yihiin kuwa dowladda jecel waxa uu intaas ku daray in shacabka ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir ay yihiin kuwa heegan oo ah in mar walba ay bixiyaan canshuuraha asagoo kula dardaarmay in halkaas ay ka sii wadaan dadaalada lagu bixinayo canshuuraha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxa uu xusay in canshuurahaasi laga qaado shacabka Soomaaliyeed dib loogu celin doono kulan ciyaareed lagu xasuusanayo Allah u naxariistay duqii hore ee Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow oo bishii July ku geeriyooday magaalada Muqdisho qarax ay argagixisada Al-Shabaab ka geysteen ayaa lagu qabtay laguna soo gabagabeeyay wadanka Holland kulankan ayaa waxa soo agaasimay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Holland Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow ayaa lagu xasuustay kulan ciyaareedkan oo muddo soconayay waxaana ciyaarta kama dameystahay isugu soo haray laba koox oo ka dhisan wadanka Holland oo jaaliyadda Soomaalida ka kala timid iyadoo sidoo kale kulankaasi dadkii ka hadlay ay sheegeen in duqii hore ee Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow uu ahaa haliyay qaranka Soomaaliya ka baxay waxaana intaa ku daray inuu mudan yahay in xasuustiisa aysan mar walba qalbiga shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibadda aysan ka bixin wasiirka amniga Maxamed Ducaale Islow iyo wasiirka saadaasha hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Salaad Omar ayaa maanta waxay hortageen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana sidoo kale weheliyay taliyaha ciidanka biliiska Soomaaliya kulankaas ayaa su'aalo lagu weydiiyay labada wasiir waxaana wasiiradu ay ka jawaabeen su'aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa wasiiradan waxay weydiiyeen arrimo la xiriira dulmaadka iyo sidoo kale amniga labada wasiir ayaa si faahfaahsan uga jawaabay su'aalaha xildhibaanada golaha shacabka ay weydiiyeen kulan lagu dhiirigelinayo nabadda iyo dalxiiska ayaa degmada Daynila lagu qabtay kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala timid 17 degmo ee gobolka Banaadir kulanka oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada Daynile ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu muujiyo nabadgelyada ka jirta degmada Daynile waxaana sidoo kale halkaasi lagu soo kormeeray goobo aad u qurxoon oo loo dalxiis tago oo ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa kamid ah degmooyinka ku yaala caasimadda Soomaaliya ee sida weyn dadka u soo jeedatay indhahooda kuwaas oo loo dalxiis tago ugu dambeyntiina askari u dhashay wadanka Sacuudiga ayaa 3 qof wuxuu ku dilay Mareykanka askarigan u dhashay dalka Sacuudiga ayaa 3 qof dilay waxaana sidoo kale la sheegay in 3 kale oo dhaawacay askarigan oo ka tirsanaa ciidamada cirka Sacuudiga ayaa tababar ku qaadanayay xeer military oo ku taala dalka Sacuudiga waxaa sidoo kale la sheegay in askarigan weerarkiisu la xiriiro arrimaha argagixiso qoraal la soo dhigay barta Twitterka ee Batigomka iyo sidoo kale tan FBI-da ayaa lagu sheegay in baaritaan degdeg lagu hayo isla markaana loo maleynayo in askarigan uu arrimo argagixiso la xiriiray warkii oo aad kala socoteen muuqaal baahiyaha codka gobolka Banaadir waa naga inta